أو هلا اللي يشتغل وفضل لو حوينا عندك موضوع عيا الله فريستا فضل فريستا فضل فريستا والله فريستا الله فريستا الكرسي اللي على فوق مشاهد الشجرة يفدي هذا أباي أنا أصله يرد away. وحسنا يا دكتور سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كبير شكل ما يصير فرق بيننا. وما سنتين رئيس بدلدون وسود العشين وحن رجينا يا واحد 40 ورد من يصدق يسمع. والله يا جبلان waxay soo martay maraaxil kala duwan 7 sano kadib waxaa la sugayay horumar inay gaadho sharcigu inuu sareeyo isbedel siyaasadeed oo caafimaad qaba inuu ka dhaco dhulkeedii maqnaa in la xoreeyo waxaan aaminsanahay intaan midna inaysan dhicin sidii inta aan u xaqiijin lahayn baa nagu isugu nimid calanka ama magaca isbeddeldoon wuxuu ku qotamaa arrimaha hadda aan sheegayo oo ah horumar nabadgeliyo jubbaland dhulkeeda xora jubbaland oo israacda ayadoo sharciga iyo qawaaniinta loo xukuntamo ay sarrayso waxaad ogtihiin jubbaland waa 3 gobol 3daa gobol inta laga hayo ee xortaa waa yar tahay gobol dhan isteedyada Soomaaliya jamhuuriyaddii Soomaaliya isteedka uu caasimadiisa maqan yahay 7 sano waa Jubbaland annaga hawsha waxaan u aragnaa inay tahay hawl xun nabar booga oo nagu yaala oo dhaawaca ayaa muu aragnaa in jubbada dhexe oo caasimaddii Bu'aale ay ku taallo 8 sano kadib lagu gorgortamayo yaan la qabanin ayadoon ognahay dadka reer Jubbaland inay karti u lahaayeen inay qabsadaan ayagoon shisheeye u baahanin oo dhaqaale haysta ciidan haysta hub haysta in la diiday si bareera ayaan ognahay kama sugayna maamulkii hore iyo madaxweynihii hore ee Jubbaland 8 sano kadib inay qaban doonaan caasimaddii Bu'aale iyo inta degmooyin ee kale faraha badan ee cadawga gacanta ku haya sababtoo waxaa waajib inuu ah gabdhaha halkan isugu yimid iyo wiilasha halkan isugu yimid faraha badan oo ognahay in badan oo kamid inay ku awoontoobeen halkan ku dhaawacmeen ku gaajaysan yihiin inaynu u diyaar garowno cadowga dhulka haysta sideennu iskaga qaban lahayn oo xoreyn lahayn waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna makaniyo hoggaanka iyo maamulka Jubbaland inaan sifayno oo isku furo degmooyinka iyo gobollada Jubbaland ay ka kooban tahay ee cadowgu ragaadiyey ee gaajadu ragaadisay ee caafimaad darradu ragaadisay ee la dhaafi lahaayay buulguduud iyo u dhaxayso airportka halkan doorashaan ka sugaynaa doorasho kama dhicin waxaa dhacay waxaad ogtihiin riwaayad baa halkan ka dhacday riwaayad baa lagu jiray
ruwaayadii la jirayna shalay soo gabagabowday waxaan fiirin doonaa durbaanka dambe ee sii socon doona halkan iyadoo aan ognahay halkan wixii ka dhacay ee musuqmaasuq ahaa ee boob ahaa waxaanu ka xunnahay hadda ka hor aan sheegnay nimanka mucaaradka sheegta ee Soomaaliya qaarkood madaxweynayaasha ay ka soo noqdeen qaarna isteediyada hadda ay ka yihiin waxa ay halkan u yimaadeen inay tahay sidii raggii ugu horreeyay u sheegeen ujeedooyin guracan oo ayagu ay leeyihiin oo ah inay ku burburiyaan qarankii iyo dastuurkii iyo jamhuuriyaddii federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan dhaho kuma guulaysan doontaan waa laydan arkaa waxaan ka xumahay shalay idinkoo xukumaya xamar oo ogaa dhibaatadii ka dhacday Zoobe 14 Oktoobar oo ognahay wixii ka dhacay inta nin baarlamaan lagu dilay inta guree la dumiyay aan ognahay dawladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ognahay runtii wax fara badan ay qabteen inaad magacooda xumaysaan صح ويه التاريخ يعيد نفسه ومدى الصومالية دبني ما دوران دونتو والأوغي هاي مسير كيمية واحد سوق قرتين قلب بارو يديك كمل وحاكا ورئيس عاطفة قبيل صوتا سنة كذب إنا تكفى عن نتان أنه ريه والباناي صح ويه وعاملين عاصمته إنه قاس ميالي ومدى الصومالية من ميالي عاطفة قبيل نما يكوريسون وقبيان الإنسان صوماليا ويكسو داشي ومن البحر maxaa Cabdullaahi Farmaajo doorashooyinka ka adkaaday waxaad u diyaar garowdaan qofkii doonaya inuu dhaliilo ha u tartamo si xalaal oo nadiif ah waqtigiisina ha siiyo صح ويه meeshan kismaayo waxay ahayd runtii meelaha ay soo gaashadeen qolaalaha sokeeye meelaha ay soo gaashadeen qolaalaha sokeeye waxay ahayd waxay heshay maamul waxaan ognahay maamulka Jubbaland dhismihiisa 2013 dhulka laga soo maray qofkii dadkii dhibaataynayay markaas waxaa ka mid ahaa madaxweynayaasha hadda jooga qaarkood iyo wasiiradiisii arrimaha gudaha iyo amniga halkan waxaa noola dhintay raggaan jecel lahay oo qaali nagu ahaa oo dhowr boqol oo askariya shacab baa ku dhintay mas-uuliyadoodana ayagaa qaadaya iyaga duulaanka ayaa nagu keenay صح ويه in maanta ay malabaad nagu abaabulaan waan idin aragnaa ujeeddadiinna waa ka hortegi doonaa insha allahu biidnaahi alkariim wax kastoona waa hortegi karnaa annagu dad isjecel baa nahay wax xaaraana ayaad rabtaan inaad nagu dul xalaalaysaan waan idinka diidna middaa awoodna uma lahadin inaad nagu xalaalaysaan صح ويه inaad nagu xalaalaysaan awood uma lahadin Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland waxaan leeyahay waa lagu doortay anugu markii lagu dooranayay dhawadan kaa fiirsanay rag baa kula tartamay doorashadaada waxaa ahayd doorasho xalaala halkan doorasho kama dhicin waxaad u timid wax xaaraana inaad dul istaagto adigu raalli kamada noqoteen صح ويه halkan doorasho kama dhicin waxaan kugula talinayaa